بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن إذا هانتي ما مالكستا أنا قد داون إنسان يسكستو مقال كين إنيسو قارايو حلقة إنيسو ورمينا واستوديو هدحاء يا أطلانتي كولج قلبتنا برامج وحكوب الإنسان على الأستاذ علي إبراهيم صوت كسلو برامجك تلاقي تصال وهي أستاذ هالكاني وحن قلبت كوكر في دونا هدو إله نفط باقي نوغد ديغو سنة دوسيتك وقبل لابد كوني لباتن يكون امتحان كي قاعد دونتو وزارة وحبرشة هداية تعليمته سيدة السنة كانوا أرك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مركز أتلانتيك كوليج مركز لبعض يعني أركز يعني وحيلتها سنة كانت سنة سوفيا سنة كانت وغيرها سنة كانت isbarbardhig markaas sanadkii horeeto waxaa jiray taxaddi jirtay mid ka badan jirtay marka sanadkan saamaynta ay yar tahay maadaama fasalkii uu yaraay buugtii aslan loo kamilay halka sanadkii horeeto waxaa weeye daraasada loo dhamaystirmado fasaxan aad u badnaay taas waxaa isleeyahay sanadkan fursadiisu ay badan tahay waayahay ustaad علي سنة كهراء وزارة وحبرشة حتى عندي امتحان وحكو لعضي تيرا جاريسو سديد كون شنبغل سدي وقفل على برشة قبل كبنادر مادام قبل كبنادر كريه امتحان كذا عين أدرس برشة مركي الله فيه وحوي آلي وقفل عليهم لأنه خلص بنك سكولي معمول كودي لأنه خلص الذي برشة الصومالية أنت gobolka banaadir degnaayeen markii loo fiiriyo gobolladii kaleete maadaama ay gobolka banaadir u badneeday dadka dhacay taas way qaado waayeen hadallada qaar way ka soo baxay dowladda xataa way qaado waayeen bulshadii bahda iskuulladan aad u tahay taas marka waxay la tahay waxyaabihii keenaa iyadoo laga fiirsanin haddana ardadii tahay arday markaas u badatay hal meel bulshadii waxay ku noqotay wax la filo waay waxa weeyaan ku cusubaan waxaad ku xasuustaa imtixaankii wasaaradda waxbarashada qaaday taas waxaan ku xasuustaa imtixaankii hadda ugu dambeeyey wasaaradda qaaday waxaan ku xasuustaa ardadii horta aad u fara badan dhacday waxaa kaloo ku xasuustaa falcelinta ay bulshadii samaysay waxaa kaloo ku xasuustaa ardada qaarkood bacad u ahay dareenka sida bulshada iyo raashii filanayeen iyo arday badan oo isdhahayn way baasayaan ka mid noqday ardadii dhacay marka runtii waxaa isdhihi karnaa waa sanadkii lugada badnaan soo maray wax dhaliilo ah ay u jeediyeen hay-adaha waxbarashada sida daladaha ma jiraan ka dhan ahaan wasaaradda waxbarashada haa way jiraan dhaliilo fara badan jiro waxaa jirta wasaaradda loo jeediyey weliba loo sheegay manhajkii loogu talagalay sanadkaas inuusan dhamaystirmin oo waxa weeyaan taarankii dambe oo ardayda ay qaadanin waxaa kaloo jirtay ardadii oo fasax ku jirto oo haddana wax aan aqrinaynin oo waxa waaye laga yaabo ciyaartoodii inay iska galan waxaa kaloo jirtay dowladdii oo aanan samaynin daraasa inay ka bixiso tifiyadii sida meelaha qaar ay sameeyeen gobollada qaar laga sameeyey laakiin gobolka banaadir wasaaradda isku mataxalujin inay soo gudbiso دراسة مركز كيف يستوى. وزيركي هراء وحبرشة والله بوضح برا وحكوت المامي أربعين سديد بقول شنطة بقول إلى عربي أربعين تنبو استعماله البراه بشنو مكان. سديو أركتها هذيك فكرة أنت بسرعة على الله يعني في كل سؤال في القدم وهو وزيرك وهذا ويدرب فرق بدن المجتمع الوقي قياس 6 مليون هي الوقي قياسه إنه ilmuhu uu yiraahdo waa ilma daabuur taas hadal ugu wanaagsan maahan wuxuu ahaa hadalkii dhegaheenna markuu kasoo dhacay aad u dhigaafo hayay ma jiraa isbedel sanadkan dhanka gobolka banaadir maadaama imtixaankii fooda lagu soo qaaday haa isbedel badan wuu jiraa sida horena waxaa la filaya insha allahu tacaala inay wax badan iska bedeli doonaan maadaama ay iskuulladii hurdada ka kaceen ay samaysteen ayagu waxaweyaan daladii kundisiin midoob ah ay samaysteen sidoo kale ay la kulmeen dhinacyadii ka qusaysay arrintaas hadday noqonayso wasaaraddii
noqonayso iyo hadday noqonayso gobolkeeda intaba la fadhiistaan haddana waxa ugu dambeysay wiilkii hadda ugu jiray in ay la kulmeen guddoomiyaha gobolka marka waxaan rajaynayaa in sanadkan sanadkii hore waayahay daawade weli waxaan ku jirnaa barnaamijkani talo iyo tusaale galabtana waxaa marti noogu ah alistood cali ibraahim xagga hoose ee commentiga nagula soo wadaaga fikradihiina halkan ayaan ka akhri doonaa galab kasta intuusan barnaamijka soo gudagelin waad mahadsantihiin alistood cali ka maamul ahaan iskuullada hadda aad gacanta ku haysiin aad maamushiin waxaad u malaysaa sanadkii hore markuu mudane goodax bare oo gacanta ku hayay wasaaradda waxbarashada sanadkaani ka baxayso dugsiyada sare inay aad iyo aad u baqi jireen inay magax bare inta badan ardayda kusoo celi jireen sanadkaani ma jirto wax xitaa isku soo sheeqaadaya imtixaanka ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada maxaa sabab u ah horta waxa waaye sanadka hore marka isku fiiriyo wasaarad ahaan wasaaraddu waxa ay dadku aad u sheegi jireen sanadka horta xataa ay gaarsiiyeen ilmaha yaryar lagu cabsiyo goodax bare heerkaas ay gaartay wasiirka wasaaradda xilligaas sanadkii tegey sanadkan waxaa malaysaa in wasaaraddu ardaydu aysan dheg u haynin in waxa weeyaan sidii horeeto laga iibiyo marmaysa laakiin maadaama ninkaas uu la yimiday habsan socod ka duwan kuwii horeeto oo wasaaraddiina ka dhigay wasaarad qiimo badan ka dhigay hadda waxaad malaysaa sidii hore ka yaro hooseysa wasaaradda xusuustii dadka xusuusanaya sidii u weynay dadka sida waxa weeyaan ardadu ay uga cabsanayeen ardayga markii la yidhaahdo imtixaan dowladda galaysaa oo ayay goodax baraagaan heer waxay gaareen masajaas ay isku dirayaan xataa ay dhahaan ayay goodax baraagaan hadda dikra iska ah marka waxaa malaysaa inay sanadkii hore ka saameeyeen waayahay waxaa la soo saaray buugaag manaahiid puntland maysan qaadanin buugaagtii manaahiidta ee la soo saaray sida aan ognahayna iskuulaadka weli maysan marhinin buugaagta manaahiidka ee la soo saaray weli waa qabin ka wasaarad ahaan maxay ugu talagashay buugaagtaas aanan amaanin imtixaanka hadda ay fooda lagu soo hayay qaada horta waxa waaye manhajku sidiisa waa dowladda soo saartay wuxuu ka dhaqan galay adiga inta badan maamulada dowladda hoostaaga puntland iyo soomaaliya ayagana waxa weeyaan insha allah tacaala gaari doonaa way fiican tahay intaba imtixaan oo wargeysan dowladda qaadayso taas waxa weeyaan sharaf u tahay dalka soomaaliya oo tahay puntland markii horeeto waa sanadihii horeeto dagaalka ayagii wasaaradda waxbarashada goodax bare aad u maqlaaya taas uga hadleen walow laakiin hadda aad fadhiiso wasiirka cusub waxyaaba ugu horreeya qabto puntland kala heshiiyey dhibaatadii taagneed laakiin manhajkii weli maysan qaadan kuma soo dirin laakiin waa rajaynaya kusoo diri doonto sanad soo socda iskuulaadka brifetka ee sida goonida loo leeyahay iyo iskuulaadka dowladda maxaa farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxaa farqiga u dhexeeya waxay tahay waxbarasho ahaan marka la yidhaahdo waxaa aad xooga saaraan iskuullada brifetka sababtoo ah waxaa weeyaan kuwan dhaqaalana way ka sameynayaan haddana dalajoog badan iyo waxa weeyaan inay ilaaliyaan sumcadoodii iyo waxa weeyaan halkaas muuqaalka ay ku lahayn bulshada walaashtaan mid kasta ku dadaalayaa iyo mid kasta siduu kaalin ku dadaalayaa oo u noqon lahaa iskuulka soo baxsan halka waxa weeyaan iskuulka dowladda uu yahay iskuul waxa waaye dowladdu ay maamusho laakiin waxa weeyaan laga warqabin ka warqabitaankiisa weli waxa weeyaan dowladda macallimiinta noqonaysa ardayda noqonaysa waxbarashada halka noqonaysa keliya ay tahay in daraasada loo bixiyo lagana warayo laanta marka halkaas waxa ka tala iyo tusaalo maxaad siinaysaa ardada sanadkani imtixaanka galayso kuwa eidka iyo kuwa fanfoorka waxaan dhihi lahaa marka Allah subxaana watacaala marka labaad waxaan ku talinayaa ardayda dagaalada khaasatan meelaha ilaha sarsiga oo keenayaan ay ku dadaalaan intii waqtiga ay haystaan ay iska ilaaliyaan waxyaabaha ka mashquulinaya daraasadoodii sidii inay isticmaalaan bariga bulshada inay isticmaalaan waxyaabaha aniga hadda ma dhihi karo waxaas sida wasiirka oo sheegay
arday waxaas ka waranto ku dadaala mustaqbalka waayo had sanadkan waxaa dhacday arday sanadkii ka horreeyay galanayaan ama sanadkii labaad qaar ka mid istaa qofkii intaasoo dhan cibaadadiisa uu ku dadaalo halka keliya la akrinayo xilliga imtixaanka la soo dhawaayo waxa ka wanaagsan inuu ardaygu marka hore la akhriyo waayo maskaxda biniaadamka waxaa laastika haddii waxa waaye akhriska la badiyo maskaxdaasi jinta inuu kobcaysa haddii marka ardayga keliya xilliga imtixaanka markii la gaaro uu wax akrin bilaabo halkaas marka maskaxdaas wax ma qaban karto waayo uma diyaarsan waxaa la biniaadamka halkii loo leeyahay ayuu waxa waaye mutaabsano maskaxdiisa marka hadduu leeyahay oo akhrintii ku badiyo wax way qabanaysa waa aragtay dadka jimka maalowooda muuqaa dadka banooniga ciyaaro halka marka qofka wax akhrinta badiyo maskaxdiisa ayaa ugu maskaxda marka waxaa imaanaysaa inuu kayr badan sameeyo hadhow inuu ku furto waxaa laga yaabaa xalay maadi inuu akhriyey imtixaanka markuu fariistana uu soo oday wax keeni kara marka ardaygaas hore wax u akhriyo marka ardada soomaaliyeed waxaan kula talinayaa kasta ku dadaalaan aysan xilliga imtixaanka keliya akhriyo si ay hadhow gelitay u noqoto maskaxda guud xusuusta soo dhaliso xilliga imtixaan weliba hal maadaama caawaan diyaarinaya inta kale maadooyinka ma akhrinaya sanadka dhan waa iska ciyaaraya waayo taas lama ahayn ardaygaas baasayo ardayga baasayo waa ardayga heliya habeen u soo taagan waqtigiisa maalin garaysto xilliya waxaa jirto wax akhrinta maskaxda wax la qaban karo xilligaasi hadduu ardaygaas ku dadaalo salaada casir kadib oo kaleete salaada subax kadib oo kaleete 2 saac oo cishaha marka habeeda hadduu akhriyo sida maskaxdaas qabanaysa weeyaan haddana marka waxaa kaleete akhrinta badiyaan si waxa weeyaan maskaxdooda u yeelato maskaxda daawada adi maxay kula tahay sanadkii horeeto waxaa dhacday 8,500 oo arday sanadkaani maxaas leedahay tirada ma ka yaraa doontaa mase way ka badan doontaa Ustaad Cali soo dhawow barnaamijka